Assalaamu calaykum caruurey. Sheeko cusub ayaan baranaynaa. Sheekadan waxaa lagu magacaabaa dooradii yareyd ee gaduudnayd. Waxaana sheekadan ku bilaabanaysaa sida tan. Waabaa waxaa jiri jiray dooro yar oo gaduudan oo ku noolayd meel beer ah. Waqtigeeda oo dhan waxay ku qaadan jirtay orod iyo howl tiro badan ayadoo meel walba ka raadinaysa tixri ay cunto. Waxaa sidoo kale beerta kula noolaa mukulaal, eey iyo dooli. Waxay aad u jeclayd dixriga aadka u macaan ee cayilan, iyadoo aaminsanayd in dixriga cayilan inuu lagama maarmaan u yahay caafimaadka ilmaheeda. Mar walba oo ay hesho dixri cayilan, ilmaheed ayay u qaylin jirtay. Markii ilmaheed ay u soo wada ordaan dhankeeda, ayaa wixii yar ee dixri ah oo macaan ayay si cadaalad ah ugu qaybin jirtay. Mashquulka hooyadaas haddaa arki lahayd waa yaabi lahayd. Doorada yar oo gaduudan sidoo kale waxay qaban jirtay shaqo walba oo beerta iyo guriga taalay. Waxay karin jirtay cuntada, waxay dhaqi jirtay dharka iyo alaabta guriga, dhulka ayay xaaqi jirtay, dariishadahana way nadiifin jirtay, dharkana way feerayn jirtay. Bakhaarka lagu kaydiyo raashinka oo beerta ku yaalay albaabkiisa ayaa mar walba waxaa ku hurdi jiray mukulaal cayilka ka batay. Cawska beerta ayaa wuxuu ka samaystay sariir raaxo badan, waxayna mukulaasha ku faraxsanayd hurdadeeda macaan inay ku raaxaysato mar walbo. Eygana wuxuu jeclaa inuu maalintii oo dhan meel barandada bannaanka guriga ah inuu ku qoraxaysto oo ku raaxaysto. Dooligana sida caadadiisa ahayd wuxuu jeclaa baashaal, hurdo iyo shaqo diidnimo. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa doorada yar oo guduudan ayaa waxay heshay abuur mar ay xaaqaysay guriga bannaankiisa. Wuxuuna ahaa abuur oo qamadi ah. Markaas ayaa waxay ku qaylisay, yaa abuuri kara abuurkan oo qamadiga ah? Mukulaashii waxay tiri, anigana warkaas ma ku jiro ayuu yidhi eygii. Dooligiina si lamid ah wuxuu yidhi, anigana ma ku jiri shaqadaas. Doorada yar oo gaduudan waxay tiri, hadday saas tahay anaa abuuraya qamadigan. Maalin walbo doorada yar oo gaduudan waxay waraabin jirtay geedka qamadiga ah. Cawska oo agtiisa ka soo baxana waa jari jirtay ilaa geedkii qamadiga uu soo fiiqmay oo geed dheer oo bannaanka u soo baxay uu ka noqday. Markii beertii ay bislaatay ayaa doorada yar oo gaduudan waxay tiri, yaa ila guri doona qamadigan? Mukulaashii waxay tiri, aniga shaqadaas ma ku jiri. Eygiina wuxuu yidhi, aniga shaqadaas ma ku jiri. Dooligiina wuxuu yidhi, anigana shaqadaas ma ku jiri. Doorada yar oo gaduudan waxay tiri, hadday saas tahay anaa goosanaya qamadiga. Markii beertii ay guratay ayaa doorada yar oo gaduudan waxay tiri, yaa makiinada lagu shiido burka qamadigan u qaadaya, yaanoo soo shiidaya burka? Mukulaashii waxay tiri, aniga ma ku jiri warkaas. Anigana ma ku jiri shaqadaas ayuu yidhi eygii. Dooligiina si lamid ah wuxuu yidhi, anigana ma ku jiri shaqadaas. Doorada yar oo gaduudan waxay tiri, hadday saas tahay anaa u qaadaya makiinada burka lagu shiido qamadigan. Markii burkii ay soo shiiday ayaa doorada yar oo gaduudan waxay tiri, yaa noogu samayn doona rooti burkan? Mukulaashii waxay tiri, aniga shaqadaas ma ku jiri. Anigana shaqadaas ma ku jiri ayuu yidhi eygii. Dooligiina si lamid ah wuxuu yidhi, anigana shaqadaas ma ku jiri. Doorada yar oo gaduudan waxay tiri, hadday saas tahay anaa samaynaya rootiga. Doorada yar oo gaduudan waxay soo aruurisay qoryo. Dab ayayna shiday, kadibna biyo, leebato iyo bur ayay isku qastay oo baaquli ku shubtay si ay rooti u samayso. Markii cajiinkii diyaaru u noqday, dabkana si fiican ugu dhilay oo u kululaaday, ayay saxan saartay rootigii. Dabkana saartay oo foornada gelisay. Wax yar kadib gurigii oo dhan waxaa ka buuxsamay ur aad u macaan oo ka imaanaya rootigii foornada ku jiray. Mukulaashii waa ka soo degtay sariirtii cawska oo raaxada badneed oo ay ku jiiftay. Waa soo taataagsatay meesha urkan ka imaanaya ayadoo oo sanka la raacaysa. Eygiina waa soo kacay meeshii uu ku qoraxaysanayay, wuxuuna u soo dhaqaaqay raashinkan aad u macaan, urkan meeshuu ka imaanayo. Dooligiina boodbood iyo orod ayuu isku soo qabtay, asagoo raadinaya urkan macaan meeshuu ka imaanayay.
isla waqtigaas oo mukulaashii eygii iyo dooligii ay meesha iska soo xaadiriyeen doorada yar oo gaduudan waxay foornada ka soo bixinaysay rooti gaduudan caraf badan aadna u macaan. markaas ayaa doorada yar oo gaduudan waxay tiri yaa raba inuu cuno rootigan. aniga ayay ku ooysay mukulaashii. aniga ayuu ku ooyey eygii. aniga ayuu ku ooyey dooligii. doorada yar oo guduudan ayaa waxay tiri nimaan shaqaysan shaah waa ka xaaraan. rootigan macaan kulligiis aniga ilmahayga ayaa cunayna. aniga keligayga abuuray qamadigan. aniga keligaygaa waraabiyey. aniga keligaygaa cawska ka guray. aniga keliyaa beerta soo gooyey. aniga keliyaa burka soo shiiday. aniga keliyaa geedihii dabka lagu shiday soo aruuriyey. aniga keliyaa dabka shiday. rootigaasna aniga keliyaa qasay. aniga keliyaa foornadii geliyey. marka cadaaladda waxay tahay in aniga keligayga iyo ilmahayga aa cunno rootigan. mukulaashii eygii iyo dooligii oo fiirsanaya ayay kulli rootigii cuntay ayadii ilmaheed. xataa waxay dhulka ku dhacay ma u dhaafin. maalintaas waxay ka dambeeyey doorada yar oo guduudan waxay heshay dad badan oo diyaar la ah shaqo walba inay la qabtaan oo caawiyaan. soomaalida horaa waxay u dhahday 3 ilaahay waa karaa, macnaa ilaahay waa awoodaa, laakiin ma ka suurooda, macnaha waa in adiga shaqaysaa. midda koowaad waxay tahay ilaahu guursan maaye wiil isii, haddii aadan guursanin ilma ma dhalaysid. tan kalena waxay tahay ilaahow shaqaysan maaye xoolo isii, macnaha haddaad dhahdid inta ayaan seexanayaa, ilaahay raashin cirka iga keeno, taas ilaahay waa samayn karaa, laakiin ma ahan habka adduunyada ay ku socoto. tan kalena waxay tahay ilaahow aniga maku caabudaayey, salaad ma dukanaayey, ma soomaayey, zaka ma dhiibaayey, ilaahay janno igey. soo marka waxyaalahaas waxaa lagu tilmaamayaa waxyaala camal loo baahan yahay inaad qabatid, waa inaad shaqaysa, howl aad qabataa. nabigana wuxuu yidhi waxaa fiican midkiina in uu qaato xarig oo buuraha uu aado oo geedo uu soo guro oo dhawarkiisa uu ka soo qaado, kadibna uu iibiyo oo raashiin uu ku iibsado. taas ayaa waxay aad ugu fiican tahay. ilaahay agtiisana loogu jecel yahay in dadka aad barisid oo aad dhahdid waxa isii, taasoo dadka ay ka suuroodo inay marna ku siiyaan marna ku diidaan. marka waxa aan ku baranayno oo moraalka sheekadan waxay tahay in qofka naftiisa uu ictimaado, dad kale uu caawiyo, howl uu qabsado oo uusan fariisanin oo caajis uusan noqonin. haddii guriga dhar dhulka u yaala aragtid inaad qaadid, waxay wasaqa ah aad ku dartid dharka wasaqa ah, waxay alaab wasaqa ah inaad caawisid. wax walba oo dadka ay samaynayaan oo shaqo ah inaad la qabatid oo aad la caawisid, oo aadan noqon qof lazy ah oo caajis ah oo meelaha jijiifa oo wax faa'iido uu leeyahay aan jirin. sheekadan meesha inoogu eg tahay. ilaa sheekada dambe aan kulmi doono waxaa idinka tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullah.